kooxda TPLF iyo hogaamintooda ayaa dib ugu soo guriya noqday magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega kadib 8 bilood oo hoygooda u ahaa gunta iyo dhalada sare ee Buuraleyda waraysi laga qaaday Dr. Debretsion Gebremichael isagoo xafiiskiisa ku sugan ayuu warbaahinta Tigray Media House u sheegay in weli uusan dagaalka dhamaanin balse ay ka guuleysteen wax uu ku sheegay cadowgii warbixin dhameystiran ayaan idinkaga haynaa halka ay madaxda qaramada midoobay kulan ay yeesheen oo ay kaga arrinsanayeen xaaladda murugsan midda colaadeed iyo midda bini'aadantinimo ee ka jirta gobolka Tigreegana ay walaac xoogan ka muujiyeen sida ay uga sii darayso colaadda iyo cunto yaraanta laga soo sheegayo gobolka Tigreega go'aamo waaweyn ayayna ka soo saareen dhinaca kale kooxda TPLF oo weli meel ka mid ah deegaankooda dagaalo ka wada ayaa 48 saacadood u qabtay ciidamada axmaarada ee ku sugan gudaha Tigreega hadalkii Abiy Ahmed ee ahaa inuu difaaci doono shacabka axmaarada iyo go'aankan sidee isku waafaqi karaan isagoo maalmo ka hor ku dhawaaqay xabad joojin sidoo kale waxaan warbixin idinka haynaa Abiy Ahmed oo bilaabay qariska tour siyaasadeed iyo galaangal wuxuuna mucaaradka Itoobiya u ballan qaaday in haddii uu xisbigiisa ku guuleysto doorashada uu ka qayb gelin doono qaab dhismeedka dawliga ah sal ilaa bar haddaba sidee ay ugu qanci karaan ururada mucaaradka arrintaasi dawladda Itoobiyana tan iyo intii ay ku dhawaaqday xabad joojinta ayna sheegeen inay u diyaarsan yihiin wada hadal ay haddana ay eedeyn weyn ay huwisay kooxda TPLF iyagoo ku sheegay in xasuuq argagax leh ay u geysteen dad shacab ah iyo qaar ka mid ah madaxdii dawladii ku meel gaarka ahayd ee uu kal hore marka ay ciidamada qaranku ay qabteen magaalada Maqale ee u magacaabay Abiy Ahmed kuwaasoo lid ku ahaa kooxda TPLF qodobadan ayaan idin haynaa iyo warbixin dheeri ah aan ku bilownay hogaamiyihii TPLF iyo saaxiibadii ee muddada 8 bilood ee ugu dambeysay ku maqnaa buuraha iyagoo ka dhigtay hoyi ay buddigeen dagaalo joogta oo ay kula jireen ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea ayay dib ugu soo guriya noqdeen caasimadda Maqale waxaana ay hore u soo gudagaleen goobahoodii shaqo kadib markii ay ka xoreysteen magaalada Maqale ciidamadii isku dhafka ah ee ku sugnaa haddaba hogaamiyaha kooxda TPLF oo madaxtooyada deegaanka Tigreega waraysi ku siiyay warbaahinta Tigray Media House ayaa sheegay inuusan weli dhamaanin dagaalku isla markaana uu weli ka socdo meelo ka mid ah deegaanka Tigreega walow la sheegay inay gebi ahaan baxadka ka talaabeen oo ay ka baxeen dalka ciidamadii Eritrea balse wax xaqiiqo ah oo cadeynaya xogtaasi aysan jirin ilaa waqtigan balse Dr. Debretsion Gebremichael ayaa yiri jab weyn oo aan soo kabasho lahayn ayaan u geysanay wax uu ku sheegay cadowga balse ay waqti xaadirkan uu qorshahooda xigo uu noqon doono caawinta shacabkooda halista ku jira wuxuu xusay hogaamiyaha kooxda TPLF inay guulahooda ka caawiyeen khibradooda ay u leeyihiin dagaalada iyo taageerada shacabkooda iyo ururada iska caabinta ee TDF wax faahfaahina kama uusan bixinin falcelinta baaqa dawladda ay hore ugu dhawaaqday xabad joojinta iyo midka caalamkaba balse taas bedelkeeda wuxuu ku goodiyay inay sii wadayaan dagaalada ilaa inta ay dhulkooda gebi ahaantiiba ay xoreynayaan waa sida uu hadalka u dhigay dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulankii ay yeesheen waxay walaac xoogan ka muujiyeen oo ay sheegeen inay aad u sii xumaatay oo ay si daran u sii liitaan dad aad u badan iyo xaaladda bini'aadantinimo oo faraha ka sii baxaysa qarkan ay u saaran yihiin inay gaajo iyo cunto la'aan darteed ay u dhintaan dad nus milyan ku dhow oo ku sugan gudaha gobolka Tigreega mar ay ka hadlayeen xaaladda colaadeed ee gobolka ayay goluhu waxay xuseen sida ay macquul u tahay inay dagaalo hor leh ka qarxaan gobolkaasi Tigreega maadaama ay sii korodhay xiisadda toddobaadyadii ugu dambeeyay waqtiganna aysan muuqanin ifafaalla muujinaya tallaabooyin ay dhinacyadu u qaadayaan dhanka dejinta xaaladda cakiran walow ay bogaadiyeen go'aankii ay dawladda Itoobiya ku dhawaaqday ee ahaa xabad joojinta sidoo kalena ay u soo jeediyeen kooxda TPLF inay dhankooda sameeyaan xabad joojin degdeg ah balse dhammaan arrimahan ma barigantaali karaan dadaalada ay wadaan beesha caalamka iyo qaramada midoobay waayo marka laga yimaado hanjabaadaha goodinta leh saansaan colaadeed oo hor leh haddana waxay dhinacyadu si weyn ugu kala fog yihiin in duulaanka lagu soo qaaday Tigreega iyo dhul ballaarsiga ay axmaaradu samaysay iyagoo dhul ka qabsaday Tigreega ayaa haddana dhankooda waxay TPLF muddo 48 saacadood oo kaliya ah u qabatay ciidamada axmaarada ee ku sugan dhulkooda in ay kaga baxaan hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa si weyn uga hor yimaaday arrintaasi isagoo horey uga digay kooxda TPLF in haddii ay weerar ay ku qaadaan shacabka axmaarada ay difaaci doonaan dhankooda xisbiga BB qaybtiisa deegaanka axmaarada ayaa sheegay haddii ay weerar ku soo qaadaan kooxda TPLF inay isdifaaci doonaan oo aysan gacmaha laaban doonin dhammaan arrimahan ayaana sababi karaa inay colaaddu si hor leh uga sii qaraxdo dhanka bari ee deegaanka Tigreega waana arrintan waxay walaaca weyn ka qabaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay si kastaba ha noqotee wixii xiisadaasi ka soo cusboonaada waan idinla socodsiin doonaa hadduu eebbe weyne ogolaado dhanka kale Abiy Ahmed ayaa waqtigan bilaabay isdabcin iyo furfurnaan siyaasadeed isagoo laabqabajin hordhaca u soo jeediyay xisbiyada mucaaradka dalka waxa uu yiri haddii doorashada la shaacin doono dhawaan
uu ku guulaysto xisbiga uu hogaaminayo ee b b uu ka qayb gelin doono mucaaradka kuraasta dalkana uu wax ka siin doono tal ilaa baar arrintan ayuuna uga gallo yahay mid uu iskaga khafiifinayo culayska siyaasadeed ee ururada saamaynta leh ee dalku ay ku hayaan iyo xiisadda ka alowsan gudaha dalka balse marka laga yimaado ururo jabhado ah oo awood ku dhexle dalka isla markaana dagaallo culculus ka wada dalka haddana waxaa jira ururo siyaasadeed oo si weyn u salugsan nidaamka hoggaamineed ee abiy axmed ee ku salaysan awood ku maquuninta inkastoo ay wakhtiga siyaasadda dalku ay weji kala yeelatay oo uu fashilaad weyn dhexda kaga jiro ra'iisul wasaare abiy axmed hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa eedayn culus huwisay kooxda TPLF taasoo ay ku sheegtay inay u geysteen xasuuq ba'an dad shacab iyo qaar ka mid ah madaxdii ku meel gaarkayd ee uu dabayaaqadii sanadkii hore abiy axmed u magacaabay gobolkaasi Tigreega kadib markii ay ka saareen kooxda TPLF magaalooyinkaasi waxaana ka mid ah ayay dhaheen madaxdaasi ay xasuuqa darar u geysteen markii ay soo galeen caasimadda Maqale wasiirkii wasaaradda maalgashiga isku soo wada dubo hogaaminta kooxda TPLF iyo ciidamadooda taabacsan ayaa ka hor inta aysan soo gelin magaalada caasimadda ee Maqale waxay gebi ahaanba magaalooyinka deegaankooda ay ku soo wareejiyeen shacabkoodana ay halkaas ugu soo bandhigayeen kumanaan maxaabiista ah ay ka qabteen ciidamada militariga Itoobiya iyo Eritrea intii ay ku guda jireen dagaaladii 8 bilood ee ugu dambeysay socday ay sida xun isku farasaarayeen dhinacyadu dhankeedana dowladda Itoobiya ayaa been abuur ku tilmaantay tirada ciidamada ay soo bandhigeen kooxda TPLF waxay xaqiijiyeen in askarta maxaabiista ah ay ka hor inta aysan gelin gacanta cadawga ay si iskooda isugu dhiibeen kooxda TPLF sabab la xiriira ayay yiraahdeen si shacabka loo badbaadiyo oo colaadda loo soo afjaro